السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال سو دوادا caawa waxaan idfahansiinayaa pattern aad muhiim inooga buttonka waxaa la dhahaa VLOOKUP iyo waxaa jira mid la yiraahdo HLOOKUP labada button ayaa saaxiib caawa kala saarayna VLOOKUP waxaa loo isticmaalaa marka aad raadinaysid qiimo adoo ku raadinaya vertically si joog u tax ama si taagan tusaale ahaan waxaad raadinaysaa shay ku jira ama column-kan ama shay ku jira column-kan ama shay ku jira column-kan ee raadinaysaa saaxiib so waxaan u baahanahay marka koowaad inaan ogaano bal muxuu isticmaalaa muxuuse u baahan yahay VLOOKUP normally waxaad ku raadinaysaa tusaalaan xog aad u tiro badan ayaad haysataa waxaana kugu adkaatay inaad kala saarto waqti ay kaaga baahatay inaad raadisid haddaba marka koowaad waxaad soo qaadanaysaa saaxiibayaal si fudud ugu soo horeysa waxaan tusaale ahaan raadinaynaa numberka la Muse oo line-kan ku jira waxaan dhihi karnaa marka koowaad waxaan soo bilaabaynaa isagoo caadi ah dhowr xabo ayaan ka sameynaynaa ama u kala saari doonaa so waxaan leeyahay marka koowaad waxay la mid tahay equal baan qoranaya ama intaan equal ka iska daayo ayaa waxaan la soo baxayaa VLOOKUP halkan ka baaranayaa halkan soo furaya waxaan ka dhigayaa all markaan all ka dhigo ayaa halka waxaan ka raadinayaa VLOOKUP haddii rabto mid kamid ah dooro kadibna VL degdeg ugu qor waxa ku soo baxaysa VLOOKUP hadii kalena hoos u raac oo VLOOKUP kala soo baxa kadibna okay de hadii tani ay kugu adkaato si fudud waxa iska qoran kartaa equal kadibna waxa oran kartaa VLOOKUP mooska soo kaxee kan saa ugu dhufo that is it haduna qaacidadii halka ku dhex qoro laakiin taasi waxa aynu doonayno inaynu sameeyno ma aha taaynu doonayno inaan sameeyno saaxiibayaal waxa weeyaan inaan raadino qiimaha ay ku jirto Muse ama Faarax mid kamid ah so waxaan leenahay VLOOKUP tan inoo doon halkan soo gal barta all ka dhig halka all baan ka dhigayaa okay baan leeyahay halkan aan soo gelayaa waxaan taabanayaa V kaliya so V da ii geeyo ama VL taabo si uu markiiba kugu soo saaro VLOOKUP so waaba dhowr xaba video so that markiiba uu soo tuuraya VLOOKUP ama VL ku qor wataanbu ku soo saaraya okay de VLOOKUP waxay ka kooban tahay saaxiibayaal ka koobaad waxa ku qoran lookup value oo ah qiimaha aad doonaysid ka labaad saaxiibayaal waxa la table array tableka aad ka raadinaysid laga bilaabo halka ilaa halka ka ku xigana waxa weeye column-ka ay ku jirto numberkiisa ka ugu dambeeyana waxa weeye range-ga aad ka raadinaysid so intaas oo button ayaan rabnaa inaan sharaxno ka koowaad waxa aanu doonaynaa saan idin sheegay waxay ahayd Muse ahayd waxaan ka raadinayaa ka soo qaad column-kan oo dhan ayaan ka doonayaa okay waan gartay column-ka markaan ka doono waxaan leeyahay 1 ayaan siinayaa column index number-kana 1 iskaga qor so waxaan eegayaa Muse ma ku jiraa ha sax wuu ku jiraa so listi badan baa lagu siin karaa listi badan ayaa lagu siinayaa listiga badan ee lagu siiyo hadhow waxaad leedahay ii soo daabac markaa shaygaas ii soo daabac iminka sida waxaa lagu yiri kadaa waxaa lagu yiri Muse telefoonkiisa ii soo sheeg so ama Muse waxaad ii soo ama waxaa lagu yiri numberka la yiraahdo 7 qofka ku jira waa qofkee so waxaan idhi okay de anu ma garanayo because listigu tira badan yahay numberka 200 ayaa ku jira hadii lagu dhaho what will you do maxaa samayn doontaa nothing waa inaad isku daydo in aad doontid markaa so waxaad samayn doontaa markan sidii ka duwan baan idigu sharaxaya waxaa leeyahay VLOOKUP mooskaygaan soo kaxaynaya kanaan ku dhufanaya waxaa leeyahay waxaan doonayo waa number 7 waxa ku jira hakad ayaan leeyahay hakad markaan dhaho ayaa waxaan dhahayaa laga bilaabo 1ka ilaa halkaasaan hoos ugu jiidaya kadib waxaan leeyahay hakad halkana 1kaygii oo iskaga qorto waka so laakiin waa khalad iminka waxaan raadinay waxa weeye waa number 7 waayahay maadaama aan number 7 doonayo qofka magaciisa ku jiro waxaan sameynayaa 7 ayaan qorayaa 7 markaan qoro saaxiibayaal waxaan yeelayaa waxa la yiraahdo laba wax ka koowaad waxa weeyaan inaan raadiyo 7 ilaa halkee wax ka raadinaya ilaa halkaas oo dhan ka raadi because intay ku fidsan tahay dhan waa doonaysaa ilaa column-ka labaad ayaad wax ka doonaysaa hakad ayaan leeyahay halkaas waxaan leeyahay column-ka labaad weeye kan wax ka doonayo cidda ku jirta numberka 7 ee uu ku beegan yahay
markaan intaa dhameeyo enter baan leeyahay columnka 7 degan baa kasoo booday aan intan u tago haddana iska masaxo saaxiibayaal intan markaan iska masaxo si caadi aan u tagno bartii aan kala soo baxaynay ee ahayd functionka halkan aan ku dhufanay waxaan tagnay function markii function aynu tagnay halkan waxaan kala soo baxnay vlookup markaynu tagnay ayaa waxaan halkan la nimi badhankeennii ama daaqadeennii waxaan nidhi numberka aan raadinayno waa godka 7 ee aan doonayno kadib haddana waxaan nidhi meesha laga raadinayaana waa halkee waa halkaa ilaa iyo halkaa intaa markaan dhamaystirnay saaxiibayaal godka wax laga doonayaa ma godka 2 ba columnka 2 because columnkan waa ka 1 columnkanna waa ka 3 so columnkan wax ka doonayna waa columnka la dhaho arday oo uu ku jiro maxay number 2 ah ka dambe haddaad rabto waxaa iskaga qortaa false ka qor so ama iskaga tag kadib waxaan leenahay okay degan baa haddana ka soo baxday waxaan doonayaa degan telefoonkeeda inaan soo helo oo bartaa uu iiga soo baxo so waxaan leeyahay intaan bartan ku soo noqdo vlookup kadibna halkana waxaan tegayaa vlookup kadib saaxiibayaal waxaan dhahayaa okay intaa markaan dhaho ayaan haddana waxaan raadinayaa kan la yidhaahdo numberkii degan gabadhii la dhihi jiray ama waxaan doonayaa numberka 7 cidda telefoonkiisu ay ku jirto haddaan doono waxaan dhihi karaa 7 ayaan ku qoranayaa 7 markaan ku qorto ayaa waxaan doonayaa meesha wax laga raadinayaa waa xagee waa halkaa ilaa iyo halkaa maanta columnka wax laga doonayaana waa ka 3 ee number 7 shayga ku beegan intaa markaan dhameeyo ayaa waxaan leeyahay okay waxaa soo boodaya telefoonkoodii oo ah 987 intaa markaan dhameeyo haddana waxaan doonayaa ama si kale aanu eego aan intan iska masaxo waxaa lagu yiri waxaad raadisaa waxa ku jira waxa la yiraahdo degan adigoo yada isticmaalaya 7 aadan isticmaalaynin halka maxaa ku jira so waxaan dooni karaa aan dhihi karaa okay haddaan saa yeelahay vlookup okay baan dhahayaa halkan waxaan ku qorayaa waxa weeye waa degan sida ay u qoran tahay u qor degan baan raadin maxaad kaloo raadinaysaa ilaa halkee ka dooni markaas waxaan maanta iga reeb nambarado ilaa halkaas baan ka raadinayaa maxaad doonaysaa kee wax ka dooni columnkee saanidi waa columnka telka oo yada muxuu noqonayaa ma 2 u yahay ma 3 buu u yahay ma ka 3aad baldhe kadib waxaan leenahay okay baan leenahay so maxaa soo baxay iminka there is a khalad baa soo baxay so khaladku wuxuu yahay aan ku laabano waxaan leenahay focus because waxaan u baahanahay qof kasto isku day bal khaladka inaa saxdid oo isku day in hada videoga post garee 1 daqiiqo kadibna isku day sida uu noqonayo inaad garanaysid ama soo saari kartid khaladka bartaas ku jira kadib halkan waxaan leeyahay vlookup halkan ma sorry kuwana mid dooranaya vlookup ban vl degdeg ugu qoraya oo ii soo baxaysa kadibna waxaan raadinayaa baan iri qof la yiraahdo degan maxaad kaloo raadinaysaa waxaan raadinayaa waxa la yiraahdo ilaa iyo halka columnka ka raadinayana waa ilaa halkaas oo dhan kan ka raadinayana 2 aan ka dhigtay 2 maraan ka dhigtay ayaan iri okay laakiin waxa ii soo baxay qiimo kale oo ah 676 sababtoo ah waxaan ku raadinayay wuxuu ahaa maxay waxaan isticmaalay degan soo khaladkii weli uu daba taagay so waxaan idin siinayaa homegas oo ah keena koowaad sababta khaladku weli uu ka taagan yahay ina qof kasta oo isku dayo ilaa 10 waan idin tusay bal miyaa ardada qaar waxay soo comment gareynayaan oo leeyihiin wuxuu noqonayaa sidaas ka duwan waa inaad dhahdid equal vlookup waayahay waxaa dhahdaa gabadha magaceedii soo qabo waan soo qabtay degan ayaan ku qoray intaa markaan qoray hakad ayaan sameeyay markaan hakad sameeyay waxa la yiri ka soo bilow halkee ilaa halkaa markaan ka soo bilaabay ayaa waxa la yiri columnka aad wax ka doonaysaa waa kee markaas waxaan ku qoray waxaan wax ka doonayaaba ka 3aad mise ka 2aad hadda haye weli waxayna daba taagan 676 so waxaan doonayaa qof kasto qaado videogaas homega sidaad u sixi lahayd isku soo day kana soo fakar casharkeena hal xiraalahaas ku soo gabagabeynayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadaal badan baa isku ognahay su'aasha hal xiraalaheedana habeen dambe ayaan ka shaqeynaynaa
insha allahu tacaala.